xiisaha iyo kalgacaylku ay dadku isku qabaan ma aha mid dhammaanaya marnaba. Si walbay ahaataba dadku waa kuwa mar walba isku soo xiisa haddii ay yihiin dad farxad isla garab jooga iyo wanaag. waxaad tihiin asxaabtaydii inta badan igu soo xidhnayd qaaliga ahayd dib u dhac yar oo igu yimi awgeed oo idinka raali gelinayaa maadaama tihiin asxaabta ku xidhan xabiib channel. mar saddexaad iyo mar koowaad iyo mar labaadba waa xabiib oo idin leh soo dhawaada. in badan intaad ii xiisteenna waan idin soo xiisay. maanta xaggan waxaan ku wadaa maanta qiso run ahaantii aad ii taabatay, qiso cajiiba, qiso run ahaantii run si dhaba u dhacday. qisadani haddii aan wax kasii taataabto waa qiso ku saabsan gabadh iyadoo 14 jir ah lagu daray wiil kale. qisadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa abaalkii gabadha iyo agoonteedii. qisadan waxaa idiin soo tabin doonaa anigoo ah Carafaad Maxamed Xuseen kuna magac dheer xabiib. xagad kala socon doontaan iyadoo taxana insha Allah inoo noqon doontana waa channelka xabiib channel. waa xabiib oo idin leh I love you dhammaantiin.